Asalaamu calaykum. Ugu horeyn, halkan waxaan insha Allah bal isku eegi doonaa sidee uu qofku u bedelanayaa passwordka ama password cusub oo uu samaysan karaa hadduu ilaawo passwordkiisii hore. Koley marka hore leaderkiisa inta hore oo dhan usoo dhammaystiri doona insha Allah. Kabacdi isaga notification baa soo gelaya. Notificationku markuu soo galo wuxuu ka soo gelayaa Gmailka. Gmailkana markaa waa inuu Gmailkii lagu diiwaan geliyay markaa waa inuu marka hore ugu jiraa telefoonkiisa ugu save garaysnaada aanu ka bixin marka. Ugu horeyn halkaa inoo muuqata click yar baa ku qoran. Click buu qofku taabsanaya. Kabacdina waxay noo soo bixi doontaa halkii laga bedelay markaa passwordka. Masha Allah. Waka markuu doonayo daba qofku inuu bedesho passwordka sida aan soo sheegnay ilaa halkaas uu soo gaaraya. Kabacdina halkan wuxuu ku qorayaa marka passwordkii cusba uu barta ku qorayaa. Haddaba halkan waxaan ka dhigi doonaa haddii Ilaahay dhaahdo kabacdi mar labaad waxaad ku celinaysaa haddana passwordkii. Deetana maxaad sameynaysaa save baad odhanaysaa. Saasuu markaa passwordkii cusba uu kuugu samaysnaanaya marka.